بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابديال waxaad nagala socotaan SNTV Daljir gaar ahaan barnaamijka kacdoonka shacabka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yusuf Raage ayaa ku sugan stuudiyaha koowaad ee telefishinka Daljir taliya marka hore ku soo dhawaaw telefishinka Daljir ee warbaahinta qaranka waa mahadsantiin Daljir hadii aad u mahadsantiin taliya waan kaaga mahad celinaynaa booqashadan maanta taliya waxaan rabnaa wadanka howlgallo xooggan oo cadawga laga xoreynayo ayaa ka socda taliya marka hore faahfaahin naga sii howlgallada ilaa iyo hadda socda ee ciidanka xoogga dalku ay wadaan بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتين أدي أدو محسنتين سيدا الله سعتان با أما أدو شيك تبا مدوينك أودن بي بليه أودن بي هول الله أياك سعودي جودهان قبل الدلكة جارهان قبل دا هيران يشبه الله ده يجل جدود أو يبوين أيه يشبه الله ده يجل جدود يشبه الله ده هيران رنتي هول الله داس وحلقة جاري قولوا أديات مهم وها meel fiican inay soo gaareen walina way socdaan insha Allah way sii socdaan howlgalladan horaanba iyo kadib waxa la xaqiijiyay guulo waaweyn maxaa u dambeeyay taliya guulaha ilaa hadda howlgallada ciidanku ay ku xaqiijiyeen dabcan howlgallada hadda horta waxay socdaan bishii afraad waxay bilowdeen bishii sideedaad 2022 hadda oo ay bishii 12aad ay tahayna wali waa ay socdaan howlgallada runtii guulaha aad iyo aad muhiim u ah ayaa laga gaaray waxaan nimanka argagixisada ah oo dhigmiiratada ah looga saaray goobo badan oo ay bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muxuu ahaa sheegay ummadda ay ku dhibaateynayeen nimanka argagixisada ah oo laga saaray howlgalladaas waxay ka soo bilowdeen gobolka Hiiraan sida la socoteen ba bishii 7aad 2022 ayay howlgallada ka bilowdeen muxuu ahaa sheegay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmooyinka Buulaburte meesha la beledweyne iyo meesha la yiraahdo Matabaan waxaad la socotaan guud ahaan gobolka Hiiraan maanta marka laga reebo meelo yar yar in gabiyahanba laga saaray cadawga qawaarijta argagixisada ah sidaas oo kale iyadana waxa barbar socda iyadana isla Shabeellaha Dhexe operation iyadana ka socday oo maanta asigana maraya runtii meel gabagaba ah oo ku sii dhow wax ka yar 20 kiiloomitir u jira xuduudka gobolka Galgaduud rajaynayna insha Allah taala waqtiyada soo socda in muxuu ahaa sheegay asigana la gaaro howlgallada marka de mahkuma ay ka doonaan gobolada kaliya guud ahaan howlgallada waxay ka bilaaban doonaan gobolada dalka ama kaba socdaanba meelo kamid ah laakiin mar walba dabcan meel ayaa culayska ama miisaanka howlgalku ayuu saaran yahay marka waxaan dhihi karaa labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe guulo aad iyo aad muhiim u ah ayay ka gaareen ciidamada qaranka iyo dadka Soomaaliyeed oo waaqsaday ayagana inay garab istaagaan dabcan qarankooda jab runtii aad iyo aad u xoogan oo dhinac walba leh ama ha noqoto dhinaca Maleeshiyada ay muxuu ahaa argagixisada oo ay ummadan ku dhibaateynayeen oo ay qaldeen ama ha noqoto muxuu ahaa sheegay ilahoodii dhaqaalaha ama ha noqoto meelihii ay ku soo maleegayeen dhagaraha iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayaan ayagana jab runtii dhinac walba taabanaya ayaa argagixisada loogu geystay waa tahay taliye toddobaadkan howlgalladii dhacay waxaa ka dhashay khasaare fara badan oo argagixisada loo geystay meelaha qaar waxa la soo warinayay in 100 ka tirsan maleeshiyaadka qawaarijta al-shabaab in hal meel ay ku wada dhinteen taliya toddobaadkan khasaare intii laga ayaa la gaarsiiyay kooxda toddobaadkan howlgallada horta waxay ka socdeen gobolka Shabeellaha Dhexe xoogoodu gaar ahaan laba qaybood ayay ka socdeen meel waxay aheeday soona Aadiyabal degmada Aadiyabal oo muddo dheer oo 15 sano ahayd nimanka argagixisada ay gacanta ku hayeen oo gacan ku haynteeda waqti dhow ay kala wareegeen ciidamada qaranka firxadkii maleeshiyadii meelahaas ka baxay iyo meel isku aruursanayeen oo adiga ilaa 30 kiiloomitir dhinaca bariga ka jirta degmada Aadiyabal oo ay isku aruursanayeen howlgal ayaa ka dhacay meesha waxa lagu dilay maleeshiyaad ku dhawaad ilaa 50 maleeshiya oo nimanka argagixisada ka tirsanaa oo horjoogayaal ku jiraan sidaas oo kale aydan isla isbuucan gudihiisa waxa jirtay soonaha meesha la yiraahdo masaajid Cali Gaduud iyo inta u dhaxaysa Guulane deegaanka Guulane dhul runtii kayma ah oo halkaas oo nimanka argagixisada ay isku dayayeen inay ku dhuumaaleystaan ayaa ciidamada qaranku ayaguna dabcan howlgal ku qaadeen ayagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ah runtii meeshaas waxa ka dhashay khasaare aad u baaxad weynaa oo nimanka argagixisada loogu geystay oo aanay dabcan filayno isla hayeen dabcan dhulka kaymaha inay uga badbaadi doonaan gacanta ciidamada qaranka laakiin taas ma aanay dhicin meeshaas maleeshiyad aad u fara badnaa oo aan isleeyahaba 100 way ka badan yihiin
ayaa runtii meesha looga dilay nimanka argagixisada horjoogayaalna ay ku jiraan ninka la dhahayo Jengab mid la dhahayo oo dabcan dhinaca wacyigelinta iyo marin habaabinta dadka dabcan qolooyinka u qaabilsanaa oo kamid aha iyo horjoogayaal kale runtii oo aad u badnaa marka isbuucan waxaan isleeyahay dabcan qasaare xoogana loogu geystay laakiin markaan sidiisaba howlgalkan aan dib u eegno bishii 8aad oo soo bilowday howlgalku ilaa maantay dabcan qasaarooyinku nimanka argagixisada isdaba joogay ahaayeen laakiin kuwan hadda aan ka hadlayno waa kuwa ugu dambeeyay oo isbuucan dabcan taliye sida sheegtay horgaladu si dardar leh ayay ku socdaan taliye moraalka ciidanka sida howlgalka ay ugu caaboon yihiin wallahi horta waxaan dhihi karaa ciidanku mar walba waxay horta u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan cadawga iyo dhagaraha muxuu ahaay shay qataraha soo wajahaya dadka Soomaaliyeed xaqiiqatanka lama qiyaasi karo waa garan kartaa dabcan jabka cadawga argagixisada ah isaga muusan imaan dabcan si bilaash waxa uu bareeray ciidanka qaranka dabcan hadaaftoodii iyo waajibaadka ay lahayn inay ku guuleystaan ilaa heerka muraarkooda gaarsiisana kariya waa dareemi kartaa kaliya ma ahan ciidanka dabcan dadka Soomaaliyeed ayaa laga dareemi karaa positionka ay maanta taagan yihiin nimanka argagixisada ah xitaa way dhaafto mararka qaar koor waxay maraysaa qolooyinka xataa TikTok leedahay maraysaa ayuu saameeyay xataa moraalka iyo muxuu ahaa ii sheegay si wada jira in nimanka afkaartooda qalafsan dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalamaan waa tahay taliye dagaalkan howlgaladii hore wuxuu kaga duwan yahay shacabka Soomaaliyeed ayaa kaalin xoog leh ku leh haddii shalay xog ay ku ekaayeen maanta si ficil ay kaga qayb qaadanayaan howlgalada wadanka ka socda kaalintaas ciidanka xoogga dalka maxay ku soo kordhisay dabcan waa dareemi kartaa horta sideedaba markaad shacbiga Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed laga hadlaayo horta waa bulshada Soomaaliyeed waa wasahayda ciidanka ay leeyihiin so haddii aan shacabka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed aanay horta ciidanka qaranka howlaha ay hayaan aanay ku garab istaagin ama aanay ku dhiirigelin ama ha noqoto dhinac xog ama ha noqoto dhinac muxuu ahaa ii sheegay kaalmo kale dabcan horta in la guuleysto way adkaa lahayd waxaan dhihi karaa marka waqtigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku baaqay dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan qarankooda garab istaagaan ciidamadooda qaranka wixii ka dambeeyaba maalinta ka dambaysa waxa soo kordhaya horta iskaashiga bulshada iyo ciidanka u dhaxeeya dabcan waxaan isleeyahay runtii waa faa'iido aad iyo aad u weyn wax weynayna soo kordhisay dadka Soomaaliyeedna xaqiiqatanka waxay garwaaqsadeen haddii aanay garab istaagin ciidamadooda qaranka in aanay ka bixin dhibaatada ay ku jiraan taas ayaa waxaan isleeyahay ayaa dabcan dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa ii sheegay soo guulaha qaar koorna soo dadajisay dadka Soomaaliyeedna ay dabcan maalinta ka dambeeyay kuwa walba kuwa ka dambeeyay ay ugu sii dayeynayaan oo ay leeyihiin war dhibaatadii dadka Soomaaliyeed oo deegaankaas ay nimanka argagixisada ku hayeen mar haday ciidamadooda garab istaageen ay iska soo qaadeen adinkana waa sidaas oo kale si aad isaga qaadaan ama laydin kaga dul qaado waa in ciidankiina garab istaagtaan marka waxaan leeyahay runtii qayb weyn ay ku soo kordhisay dhinaca xogaha iyo muxuu ahaa ii sheegay informationka inay ciidamada la wadaagaan dadku ayaa wax weyn iska bedeleen deegaanada qaar koor inayba dadku si kumbuleed guud ahaanba ay kacdoon toos ay muujiyaan oo wax qorogoro qaatay iyo wax muxuu ahaa ii sheegay xogta ciidanka la wadaagaya iyo wax la socda ciidamadii xataa hadaysan qori lahayn ayay noqdeen marka runtii waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin oo ugu amaanaya garab istaaga ciidamadooda qaranka taliye waxaa jirta fariin muhiim ah oo dhowr aad warbaahinta u marisay shacabka Soomaaliyeed meelaha la qabtay ee argagixisada laga xoreeyay taliye dadka qaar waxay leeyihiin ciidanku waa ka soo noqonaya sidii saas taliye arintaas bal ka waran taas horta waxa keenaya dabcan dadku ayagu ma ogo howlgalka qorsheyntiisa iyo ujeedadii targetkii laga lahaa taas horta keenaysa mararka qaar kood dabcan hadii sida ayagu ay wax u rabeen ay ka dhex waayaan dadku inay hadlaan howlgalku sidiisaba ma ahan meel kasto tagto iyo tuulo kasto tagto iyo muxuu ahaa ii sheegay magaalo kasto tagto inaan ku sugnaanayso joogayso ma aha dabcan meelaha qaar kood oo ciidanka u cayiman ama dawladda Soomaaliyeed ay ugu tala gashay ciidanku marka ay tagaan inay ku nagaadaan loogu tala gal meelaha qaar koorna waxa loogu tala galaa cadawga argagixisada marka ku sugan in la burburiyo oo lagu naafeeyo awoodooda meeshaas oo kale marka laga baxo de shacabka uma kala saarno intay ciidamadu marka horeba u qorsheysneed inay joogan inteesa u qorsheysneeday ciidamadu inay iyo nimanka argagixisada oo meesha ku sugan ay burburiyaan ay ka baxaan taas marka waxay keenaysaa de isma waafaqi karaan qorshihii operationska iyo sida ay ku socdeen iyo dadku dabcan sida ay rabaan qayb kamid ah mararka qaar kood way iswaafaqsanaa weynayaan
normally markaad adigu hadda si logic u fikirto aan ka hadalno tusaale ahaan gobolka Hiiraan tusaale aan soo qaadano ma kula tahay in tuulo kasta oo gobolka Hiiraan ku taal iyo magaalo kasta ciidanku markay argagixisada ka saaraan ay degi karaan ay joogi karaan maya suurtagal ma ma degi karaan marka meelaha dabcan dadka mararka qaar ay ka qaylinayaan meelahaas oo kala kamid ah meel ayaa la qorsheeyay in la dego oo waqtigaas la dego meel waxa la qorsheeyay cadawga in lagu burburiyo lagu naafeeyo marka haddana laga baxo laga yaabo meeshaas operation kaloon ahayn in loogu talagalay in la dego laakiin aan degisteedii la gaarin marka ma dhihi karno cadawga oo joogay tuulo hebel ama magaalo hebel haddaanu kaanan degayn maxaan u weerarno waa la weeraraa because waxaan u soconaa cadawga argagixisada inaan naafayno oo ummadda ka dul qaadno taasaa keenaysa marka mararka qaar koor in dadku ay aragtiyo kale ay ka muujiyaan xaaladahaas iyo sidaas oo kale meelaha qaar koor maadaama dadka deegaanku ay si cad u garab istaageen muxuu ahay ii sheegay la dagaalanka nimanka khawaarijta ah in laga yaabo in loogu talagalay ciidamada deegaanka oo kale ayagana marka ciidanka qaranku waajibka uu ku lahaa iyo waqtiga ay aheeday inuu ku sugnaado marka uu dhameysto oo lagu wareejiyo ciidankii deegaanka oo marka loogu talagalay deegaanka gacan ku hayntiisii inuu asugu u xajisto in ay u suurtageli weyso taa marka laftirkeeda dadku de kama war hayaan ciidanka qaranka ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee garab siinayay macaawislaydu maxay isla garteen tuulo hebel marka la gelay taas laftirkeeda mararka qaar koor kala arag duunaana ka imaanaysa ayaan isleeyahay laakiin runtii 99% si kastaba ha noqoto hawlgaladii soo bilowday waqtiga aan ku sheegay ilaa maantay waxay ku socdaan sidii loo qorsheeyay oo loogu talagalay guulo aad u weyn waa laga gaaray xaqiiqatan waata tali marka aan taliye ugu dambeyn wareysigan waa soo gabagabeysan doonaa waxaan rabaa taliye mar hadii dagaal dhaco waad garanaytaa dadka qaar dagaalka ay ku geeriyoodaan qaarkood maleeshiyadka marka laga hadlayo waa ay kala firxadeen qaar waa ay baxsadeen xuduudka Soomaaliya meel ku dhawaaya laga sheegay in qaarkood lagu qabtay iyagoo ka baxsanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka waxaa jira kuwa doonaya in ay dadkooda ka mid noqdaan oo ay ka soo noqdaan fikirkii xagjirnimada ahaa ee marka hore ay aaminsanayeen kuwaas ciidanka xoogga dalka maxaa ugu qorshaysan والله horta guud ahaan ciidanka xoogga dalka kaliya ma ah dawladda Soomaaliyeed qorshe uga yaali sida alla socotaanba waxa jira xarumo iyo hay'ado gaar ah oo loogu talagalay dadka noocaas ah in muxuu ahay ii sheegay dawladda Soomaaliyeed ay sideedaba ay ku wareejiso oo ay la tacaalaan wixii loogu talagalay iyo barnaamijyada loogu talagalana ay marsiiyaan laakiin sideedaba mar walbana waa ku celcelinaa nimanka argagixisada ah dabcan aragtida iyo hadaafta guud dadka muxuu ahay ii sheegay wada kulay de waqtiga ay tanasulayaan iyo sidii u tanasulayaan ayadu waa wax kale laakiin dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee ay qaldeen oo la marin habaabiye oo aragtiyaha qaldan lagu shubay madaxda qaranka kuwa ugu sareeya ilaa heerka ugu hooseeya amar walba baaq loo jeediya marka te kaas oo kale mid uun baan horta u jeedinaa waxaan leeyahay bulshadiina horta dib ugu soo laabta waxaan isleeyahay waxaan filayaa in waqti hadda ay ku sii nagaadaan dhibaataynta iyo muxuu ahay ii sheegay baabi'inta dadka Soomaaliyeed inaanu u harin horta oo ay ka toobad keenaan wixii ay hore u galeen oo bulshadooda ay ku soo laabtaan ayagoo gacmaha taagay haddii ay bulshadooda ku soo laabtaan dabcan anaga dawladana annaga waxaan ku shaqaynaynaa waxa waaye waa policy-ga iyo muxuu ahay ii sheegay nidaamka dawliga ayaan ku shaqaynaynaa ciidanka qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxyaabaha uga qorshaysan marka waxa waaye cid allaale iyo cidii kamid ah argagixisada oo isu soo dhiibta gacanta ciidanka inaan ku wareejino hay'adaha ku shaqada leh sidaas oo aan ugu wareejina hadda laftirkeeda waxaan ula tacaamulnaa sidii loola tacaamuli jiray dadka maxaabiista ah oo ama shuruucda caalamiga ama shuruucda dalkeenu ay qabto ayaan ula tacaamulnaa bacdeena hay'adaha muxuu ahay ii sheegay ay tahay shaqadooda ayaan muxuu ahay ii sheegay sida loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ayaan ku wareejinaa kuwa damban dabcan sidaasaan ula tacaamuli doonaa marka ayagana xaaladooda taas way aad iyo aad umaasan tahay General Oduwa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo telefishinka Daljir ee warbaahinta qaranka faahfaahin ka siinayay howlgaladii ugu dambeeyay iyo gulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo hoyeen howlgaladaasi anigu waa Cabdi Aqyaar ayaa wareysigan la yeeshay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yuusuf Raage inta ku kulmeeno mid loo halmaalo wareysigan dhageystayaal nabadgelyo aad u maasan tahay